magaalada Kismaayo ayaa loogu soo gabagabeeyay arday muddooyinkan baranaysay qaabka wadida baabuurta iyo sharciyada wadooyinka iyadoo munaasabadii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardadaasuna ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba. Wariyeena magaalada Kismaayo Cabdicasiis Garyaqaan ayaa warkan noo soo diray. xafladan oo ka dhacday hotel Qiilmawaaye ee magaalada Kismaayo ayaa ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcadii ugu horeysay ee ka qalan jabisa macadka barashada wadista baabuurta iyo shuruucda wadooyinka ee Jubba Driving. xafladan oo ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada maamulka Jubba, odayaal, haween, dhalinyaro iyo qaar ka tirsan taraafikada magaalada Kismaayo ayaa ugu horeyntii waxa daahfuray Cabdirashiid Maxamed Caafi oo ka mid ah maamulka Jubba Driving School, asagoona ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa oo soo maray tan iyo intii uu furnaa macadka. marxaladii kala duwanaa ee soo maray iskuulkan mahad ballaaran ka gaadhay Rabbi subxaanahu wa ta'aala. waxa maanta mahad ballaaran noo ah ilaahay xamdiisa ka bacdi in aan qalan jibintii ugu horeysay dugsiga Jubba Driving School maanta halkaan ka ambaqaado gobolada Jubbada hoose inuu yahay iskuulkii ugu horeeyay dafcadii ugu horeysay ee qalan jabisay ay maanta ku sugan tahay halkaan. dugsigan haddaan wax yar si gadaal ugu laabto waxaa la aasaasay 8 bishii 11aad 2013 waana dafcadii koobaad ee hadda ka qalin jabisa heerarka kala duwan ee waxbarashada. sidaas daraadeed waxa aan ku dhiirigelinayaa ardada sida hawlkarnimada leh u dhamaysatay. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Maxamed Warsame Faarax Darwiish, wasiirka maaliyadda Maxamed Sheekh Yuusuf, ayagoo si wadajir u soo dhaweeyay hawlaha uu macadka qabtay. in dadka la dhiirigeliyo oo ninkii wax micno la qabta la yiraahdo waa maadsanta way mudanta waa mudan. Driving school waa qayb badbaadinta kamida, laakiin waxaan leeyahay initiative iyo fikir aad muhiim u ah oo ku amaanaya rag ka fakari oo soo jeediyay oo fuliyay amaan bay runtii mudan. ilaa ma iskale waxaan aad ugu faraxsanahay wax badan waxaan ku riyoonaynay inay maanta ka dambayso yani heleen insha Allah taala. ma ahan xafladii koowaad lagu xareeyo ama meesha lagu dhigayo intaana waa intaan ilaa insha Allah waxaan diinno maxaa yeelay markasta waxaan rabnaa ka sii gudubno waxyaalihii mugdiga ahaa ee hore loogu jiray. waxaa insha Allah mahad ballaaran iska leh macallimiintii ku dadaashay inay soo saarto dafcadan koowaad. intaasi kadib waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyay ardadii ka qalan jabisay macadka barashada wadista baabuurta iyo shuruucda wadooyinka ee Jubba Driving, iyagoona xubnihii u hadlay ardayda ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay soo barteen. anaga markii aan marinay iskoolka naloo furaayay oo wax la barayay maana nahayn dad wax garanayeen. gaarigu inuu ordo waan garanaynay, laakiin meel laga maro iyo si loo galo iyo meel laga furo mid aan maanan garanayn. mahad Allah gaarsiiyay waxaan noo yeeray macallimiintan Jubba Driving School idaacaddan ka dhageysanay waan tagnay waan isdiiwaan gelinay. markii aan isdiiwaan gelinayna muddo kooban oo bil ayaan lagu baray baabuurta geerka iyo maxay ahaydeen automatic-kaba. muddadaas 30 bari ayaan ku dhamaysanay iskoolkayagii. waxaana la baray shuruucaha wadooyinka, laamiyada, maxay buuraha, shuruuc kasta oo wadamada xataa hore u maray ay ku dhaqmaan. wasiirka warfaafinta, boostada, isgaarsiinta iyo gaadiidka Ibrahim Xasan Cabdi Baajuun oo sheegay inuu maamulka aqoonsaday macadkan. waana baahi jirta oo gobolkan u baahan, baahi weyn oo gobolkan u baahan ay qabteen. waana ku mahadcelinayaa annagana ka maamul ahaan ama wasaarad ahaan waan aqoonsanahay dugsigaasi saacadan laga bilaabo. macadka barashada wadista baabuurta iyo shuruucda wadooyinka ee Jubba Driving ayaa ahaa macadkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo gudaha magaalada Kismaayo. Cabdicasiis Xaaji Maxamed Garyaqaan, Kalsan TV, Kismaayo.